nin ayaa zawjadiisii dhibtay markaasaa waxaa la yidhi markuu islaantii hayn waayey oo ku rafaaday iyo maalin wuxuu soo aaday Sayd Umar amiirul mu'miniin wuu ka dacwoonayaa islaantiisii buu ka dacwoonayaa albaabka markuu yimid yaa wuxuu maqlay amiirul mu'miniin oo zawjadiisa ay ku qaylinayso hadal kulul bay leedahay aad bay yani carabkeeda ugu dheeraynaysaa asagana waa iska shib hadal uma celinay cabaar buu agtaagnaa waa dhagaystay wax walbay tiri waa ku qaylisay hadal uma celinay markaasuu ninkii iska laabtay dee asagaa iswacdiyo wuxuu yidhi waxaan wax lagula qabo weeye keligaa meehe haddii amiirul mu'miniin basaan loo gelayo bal iska noqo reerkaaga isaga noqo waxaa la yidhi amiirul mu'miniin wuu soo kacay albaabka unbuu furay dee wax meesha laga wado markaas wuxuu arkay ninkaanoo sii noqday iska sii socdo wuxuu u maleeyey nin dan ka lahaayo intuu ka cabs inuu wax u sheegtay rabay oo dan ka lahaa oo intuu cabsaday dee hadda iska noqday oo xishooday buu u maleeyey markaas u dhawaaqay yaa fulaan maa xaajatuka warkaalay maxaa doonaysay markaasuu soo laabtay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin waxaa aad ii dhibtay buu yidhi zawjadaydii waxaan kaaga dacwo kaaga ahaa buu yidhi zawjadaydaan dacwo kaaga ahaayoo aad yani ii dhibto igu dabeeca xumaatay markaan albaabka soo istaagayna waxaan maqlay zawjadaadii oo aad kuu canaananaysa wax walba kule adigana aad waxba dhahayn marka waan iswaaniyo waan iska laabtay buu yidhi haddii amiirul mu'miniin basaan la yeelayo dee iska sabar baan idhi oo saasaan u laabtay buu muxuu yidhi marka Sayd Umar yaa akhii innii axtamiluhaa waan u sabrayaa buu yidhi waan qaadayaa lixuquuqin lahaa calaya xuquuq ay igu leedahay darteed baan ugu sabrayaa buu yidhi innahaa dabbaaqatun lidacaami raashinkay ii karisaa oo reerka raashinkay u karisaa khabbaazatun likhubzi yacni muufaha iyo kibistana ayadaa samayso ghasaalatun lisiyaabi dharkana way ii dhaqdaa murdicatun liwaladi ilmahana way ii nuujisaa walaysa biwaajibin caleyh intaasoo dhan ba waajibna kuma ah ayadoon waajib ku ahayn bay intaa ii samaynaysaa oo hadda iga haysaa wax badan bay kaa haysaa hadda islaamtu hadday caawa reerka ka tagto caawa keliya reerka ma barisiin karti oo hintaada isu yeeri ya marka wuxuu yidhi intaasoo dhan oo aan waajib igu ah aniga ayada aan waajib ku ahayn ayay iga haysaa buu yidhi marka waan u sabrayaa waa u dulqaadanayaa markaasuu ninkii wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin wakadalika zawjatii zawjadayduna waa saas intaasoo dhan bay ii samaysaa iyaduna wuxuu yidhi ixtamilhaa yaa akhii iska sabar haddaba iska dulqaado oo u sabar innahaa muddatun yasiira waa muddo yar waxaa la wada jooga adduunyada iska sabar buu ku yidhi ya marka maxaa la rabaa sabar baa la doonaya in la sabro ayaa la doonaya waxaa kaloo atar lagu wariyey ninbaa laba nin baa saaxiib ahaa ninkaa saaxiibkiisa sanadiiba mar buu soo ziyaaran jiray sanad markuu joogabo sanadkii hal mar uu soo ziyaaranaya maalinkii dambe uu soo kacay oo ninkii saaxiibkii ahaa buu ziyaaro ugu yimid guriga albaabkiisii buu soo istaagay assalaamu calaykum baabkuu soo galaa islaantii baa la hadasho waxay tihi waa kuma qofka albaabka taagan wuxuu yidhi waa zawjkaaga saaxiibkii ninkii saaxiibkii ahaa weeye asaga ayaan u socday buu yidhi waxay tihi naag aad u dabeecad xun bay ahayde huwa qaa'ilun yaxtadibu ilayna wuu maqan yahay qoryuu noo soo guraya laa raddahu allahu calayh ilaahay ma soo celiye saaliman alla ma soo nabad celiye barakalayga wuu maqan yahay markaasay wax ka sheegtay oo wax ka sheegtay wax ka sheegtay waa yaabay ninka waa iska aamusay cad meeshii albaabku cabbaar taagnaa ninkii baa kor ka soo galay qoryihii buu wadaa qoryaha wuxuu ku soo rartay libaax baa qoryihii intuu soo saartay qoryihii u waday saa u hor socdo aad buu ninkii u tacajibay qoryihii buu ka dejistay libaaxii ka dejiyey markaasuu gurigii geliyey libaaxii waa iska tegey gurigii buu ninkii geliyey oo meeshii bay wada joogeen oo ku qaabilay oo ku marti qaadayoo markaasuu ka laabtay waxbana muu weydiin sanadii labaad buu haddana soo noqday suu ziyaarada ugu imaan jiray usoo ziyaaran jiray walaalkiis albaabkii markuu soo garaacay waa kuma ninka albaabka garaacay waa zawjkaaga saaxiibkii ninkii saaxiibkii ahaa ee u imaan jiray wey markaasay tidhi waa maqan yahay show naag tii waag furay ee tu kaloo wanaagsan buu guursaday waa maqan yahay ilaahay ha barakeeye nin fiican weeye ahlu khayra ilaahay ha barakeeye waa maqan yahay aad bay ugu ducaysay wayna ammaantay wax yar buu albaabkii taagnaa ninkii oo socdaa yimid oo qoryihii tunka ku wada qoryihii buu dhigtay guriguu geliyey meeshii bay markuu ku qaabilay buu ku sheekeeyey wuxuu u su'aalay
سنة هو عجائب تاسان كوغو أركي زوجة هذا واكل الدنيا هذا الكوضوع تي ورسيد عصا يهيد تنسيدنا يهيد أذيك أنا لبدا حالان كوغو أركي بل إيه ورن مركز وحور يا أخي سنة كي وروحان قبي بوري ناك آتو دباعات حنوي لبدا وان كو صبري بوري دب كيدا ان كو صبري واخ كاستو اتراده وان سغا صبري marka dibki aan ku sabrayay sabarka dartiis ilaahay wax walbo ii sakhiray wad arkaysay bur inaan libaax qoriyo ku soo rartay ya waa sabarki aan sabrayay hada tii waan furay oo naag wanaagsan oo ehlu janno oo raaliya ah ba ilaahay igu bedelay wax walboon raba aan ka helay hada anigana ajirkii baan waayay iyo tasxiirkii la ii sameeynayo waa ka artay inaan qoriyaha tunka ku waday ya marka adduunyada hadaad ku nicmaysato adigana wax badan baa ka maqanayo ninkasta uu jecel yahay naag raaliya laakiin waxun baa ka maqanayo ya wax badan baa ka maqan marka de hadii qof yar dib badan ay qaloocan ilaahay kula kulmiyo iska sabar u dulqaado saasa la doonaya midda kale walaalayaal dadka yaani qofka xun ee dhaqankiisu xumaanaya waxa uu asal qillatu diinihi diin yaraan baa laga yaabaa inay waxa u badan tahay qofka waxa la doonay in la tarbiyeeyo waajibka diiniga loo sheego awalan gabadhu markay yartahay aabaheed baa mas'uul ka saarnaa inuu tarbiyeeyo oo diinta u baro hadduu la yahay aabaheed uu ku dacatiyo waa sida gabdhaha u badan inaan waxba la barin waa lagu dacatiyay mar haday weynaato ay nin yeelatay waajibkeeda aad ku fuulay adaa la rabaa markay inaad ka fikirto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha an-nas wal hijara ya ayuha alladina aamanu kuwa ilaahay nabiga rumeeyo qu anfusakum naftiina ka ilaaliya wa ahlikum ahlkiina naaran ka ilaaliya ahlku waayo an-nisaa wal awlad haweenkaaga ilmahaaga wasaa'iru al-aqarib qaraabada kale kula joogta iyo dadka kale kula joogo ka ilaaliya ba ilaahay leeyahay naaran ka ilaaliya waajibaadka saaran u sheega khayraadka dhan ku baraarujiya si naarta ay uga xijaabtaan oo uga gaashaantaan sunnadii xabiibkii furqaan sadaradeedii silkigii wacnaa iyo dhaqan suuban idilkii saban hore wixii soo dhaco aadmigu uu sameeyay qisooyin sawiran oo qalbigu saafi noqonayo saxaaba TV baa ku hayay sikino hadda sikino ku booqo